waxa aan idinka baryayaa naxariis weey inaad naxariisataano ihilisaano wadanka maanta waan sara joojin karnaaye inaad ila sara joojisiin baan idin weydiisanaya 25 sano ka hor dabshidkii 2000 ee shirka Carta waxa diiradda lagu saaray xal u helida dalka Soomaaliya waxaana halkaas isugu tagay xogweyntii 10 sano oo ka horeysay xabsaday hubkii dawladda dhexe kuwaas oo isku dulmiyay iyaga dhexdooda isku xasuuqay iyo kuwa gacmaha ka laabtay kana bari noqday xatooyada iyo xasuuqii la isku geystay si xal loo helo shirkaas waxa xasaanad lagu siiyay kuwa hore halka kuwa dambe loo xariiqay inay yihiin nus ama haaf taas oo aan la xaqiis ka ahayn balse shirkaas waxa wada fadhiyay marka ay weydiiso sababtii ay ugu jawaabeen in dad Soomaaliyeed ay haaf ka dhigaan ay ahayd xaq afar tareer ee maalintaas loo aqoonsaday afarey iyadoo qiimeyntu ay ku heleen ay ahayd kaliya hub ay wax ku dilaan oo ay haystaan waxa hal qaanad la isugu geeyay reer badan kuwaas oo hub mooyee aan tiro ahaan iyo tayo ahaanba ka liidan taasoo keentay in wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed oo cilmi iyo karti xaqooda ku waayay qalinkii maalintaas darteed xasuusta 25 sano kadib waxay farxad u tahay afartii reer halka boog loo damqinayo oo ay tahay reerihii kale in laga dulmiyay waxaase maanta laga shaqeyn karaa in isla hoorkii shalay sadbursigoodii ka dhacay maanta lagu simo guud ahaan awoodda Soomaaliyeed oo laga dhigo 5 si u sahlanaato ka guurida nidaamka kansarka ku ah Soomaaliga ee qabaliga dadka Soomaaliyeedna aad u kala dhantaalay xasuusta iyo xuska Carta 25 sano kadib halkii dulmiga laga dhex arkay xaq ma lagu bedeli doonaa waxa boqolaal dad Soomaaliyeed ay ku sii qulqulayaan magaalada Carta ee dalka Djibouti halkaas oo ay ku xusayaan 25 sano guuradii ka soo wareegatay dawladnimada Soomaaliya mas'uuliyiin ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa qorshuhu yahay inuu gaaraan magaalada Carta sidoo kale madaxda dawladda Soomaaliya qeybaheeda kala duwan culumaa u diin suxufiyiin iyo waliba mas'uuliyiin kale oo ka yimid caalamka kuwaas oo inta badan ah Soomaali ayaa gaaraya magaaladaasi 30 Oktoobar ayaana qorshuhu yahay in halkaas ay ka dhacdo 25 sano guuradii ka soo wareegatay Carta Mahad Mutawakkil hoyga Banaadir TV Muqdisho